hodmane waaye bahaye hanta ifka laysku dhaafo ma haysto hungaanahayo hahabtay waxaanan hayni tan 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 tararantan sharma boy maslax mideeye baan arkayo General Morgan manikin ma oran cajiib wallahi billahi tallahi adduunku waa hoos wareega General Morgan garkii cadaaday oo 70kii ka degay dhinac kale uga degay ba jilbaha ku furistay see lagu garanay inuu jireelay salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh asxaab sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dheehanaysaan waa bartiini waa bartan ku kulmi jirnay wala ka hamid bro aad iyo aad baa mahadsantiin walaalayaal like ta saara share commentiga waa dhankiina de maxaad naga daawanaysaan dhacsiide muuqaal ba inta idin soo duubay idin soo hor istaagay qoodhiin iyo xiradin baad inta i daawatid iga tagaysaa or like saar de war yaa ilaahay yaqaan like saar okay intaas kadib xafladii baa dhacday xafladii 1 Agosto ee dabaaldegii 23aad ayay ahayd Puntland halkaas waxa isugu yimi dad badan adduunyo hawl casumaado dal iyo dabad baa la isaga yimi garowe waxa ka dhacay lama arag iyo lama maqal qaybtan aynu soo qaadanayno waa qaybtii maslax mideeye iyo Sharma Boy iyo asxaabtiisi ay meeshii jawigii waa bedeleen maslax mideeye waa nin madaxweyne la dhaqana de baa oran kara maxaan kala irahdaa soo ciyaaray dadkii u dhexorday uu soo qabtay soo istaag oo yiri ha ii fadhi weynaana soo istaag meesh gacantu ku soo dhigay anaguna waxa weeye waxaan leenahay hambalyo ilaa iyo 31 baan soo bilaabay aniga mise 30 baan soo bilaabay hambalyaan leeyahay hambalyo Puntland oo 23 jirsatay waa ilaahay mahadiis waa nimco ilaahay weeye galad ilaahay waa intaas oo loogala sii dhawaada dalka guushiisu wadani daali maayo wadani adkala sana bedeli daali maayo wadani Sharma Boy ahay madaxweyne baarasho aad baa u taqaanaa ma sha Allah maslax mideeyahana ba iiga daran la ilaaha illa Allah muhammad rasuul walikaan maslax mideeya yaa ku shaqaysanaya hoy kacab leeyahay dadka war meesha hay fadhiinina kacab niman madaxaho is adkaynaya oo waxay yihiin baa meesha fadhiya ma ogtahay mid walba uu is leeyahay oday baa tahay hay isruuxin baasha luuqay ku dhageystaan ma ogtahay luuqay ku dhageystaan meeshaana kun kaamara taal hadhow waa la arkaya odagiyo niikinay ma ogtahay marka odayaal badan baa fadhiya meesha oo is gaabinaya oo mid walba waagi hore uu meesha xilka ii qabanayay oo dhinac wadaad doona ka yimi oo nimankii de wali codka iyo siiyay taageerada lacagta dhaqaalayo oo is adkaynayaan ma ogtahay ninkaana wuxuu leeyahay kaca waa se la wada kici waxba yaan la is adkayn daryeela wadani dabiiba wadani ahay madaxweynaheenu wadani waayahay halkaas waxa ka dhacday bahal heesa iyo ciyaarta quruxda badan oo aad arkaysaan oo la yaab kale oo gees socota maslax mideeye waa soo degay shacabkii wuxuu soo dhex galay madaxdii marka shacab meesha ma fadhiye waa madaxdii buu soo dhex galay maslax mideeye wuxuu yaqaanaa sida shacabka loo kiciyo labadoodu heesta way isla qaadayaan maslax mideeye shacabkii buu dhex galay waa xulay baan ku iri madax baa ka daba tagtay mid macnaha waardiyihii baa ka daba tagay waa la soo celiyay haye waa kan shacabkii buu wuxuu horiyay madaxdii ونكي مصلح مداياها وحكوها الله إريا خطرة حيري
dhalinyarada ninka abaabuli ka sidaa yeeli ka sidaa yeeli faan buu digada uga dhigay digada odayga gacanta markuu kusoo dhegayo oo soo qabanaya ilaa waa nimuu bajiqiyey waa bajiqiyey odaygu bajiqiyey waa yaabay gacantu kusoo dhegay soo istaajiyey moogtahay intuusan gacanta soo istaajin ammaan buu kala dul dhacay waa bajiqiyey kabax gacanta kusoo dhegay wallaahi bilaahi maslax mideeya ummadeenna maaha suu hadalku markuu meeshuu heesta ku lahaa markay maslax mideeya soo gaartay intuu hor istaagay oo ammaantii la dhigay saaxiibkaa gacanta kusoo dhigay way sadkeyn waaye waa soo istaagay waa la ciyaaray haye meeshaan waa la wada kacay dadkii oo dhan waa soo kaceen madaxweynihii baa istaagay kulli waa lasoo wada kacay xabiib baa odagii la jaasayaa wallaahi bilaahi tallaahi nimankii is adkeynaya meesha fadhiyey marka nimankii is adkeynayay oo meesha fadhiyey waa lasoo wada kacay meesha allah ciyaar oday baa lala camirtay madaxweyneenu waa deni allalalala waa deni kulligooda waa deni aha waa la iswada ruuxayo sheekada waa isxirtay baan ku yiri waa isxirtay jawi qurux badan meel qurux badan hanaan hool loogu talagalay alla cajiibsana maasha allah tabaaraka allah nabadu nimcadaasay leedahay dee nabadu nimcadaasay leedahay haddaan nabadi jirin xafladaasi ma dhici lahayd quruxda badan maya waa laga shaqeeyey maasha allah tabaaraka aynu ku socono bal jaaska waxaynu tegaynaa General Morgan hey Morgan General Morgan baa meesha soo istaagay oo isagu ma ciyaarin keliya haye kabax garkiina waa sitaa odaygu jilba dhigashuba dheelaye odaygu caadi buu jilba u dhigtay war ilayntanoo kale wallaahi say tahay buu jilbaha u dhiganayaa say tahay caadi ma ahan 70 jir raga ogahay hadda 20 jiradu saa ma samayn karaan qaarkood kacay wallaahi meesha horta maasha allah tabaaraka allah bartaa waxaa ka dhacday xaflad qurux badan General Morgan jilbuhu saa u dhigtay waa soo kacay haddaan qiyaaso waxaan u malaynayaa 70kii waa jiraa meelahaas maasha allah baan leeyahay aniga dee qaabka uu u kacay iyo marka la eego kolba waa nin caalamiito badan dee waana generaal Soomaaliyeed hore inta haddaan ugu gudbo meesha waxaa ka dhacday xaflad qiimo leh oo qaaya leh oo qurux badan oo marti sharaf oo haybad lihi marti sharfoon oo haybad leh oo kala duwan oo caalamka daafaha caalamka ka yimi ay isugu yimaadeen ayaa meesha ka dhacday waa aragtaan asluubta iyo nabadda iyo qaabka loo fadhiyo iyo hanaanka inna kama qarsoona jawigaasi waa jawi lagu farxo ummadda noocaas haysataa waa ummad Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa jawi kasta oo noocan ah oo meel Soomaali deegaan Soomaaliyeed saa uga dhaca inaynu saa ugu farxno sababta keenaysaa waxay tahay dad Soomaaliyeed ayaa haysta maanta Puntland waa hooyadii Soomaaliya wax kale aan ku tilmaamo garan maayo horay wixii u dhacay xagga iga dhig laakiin gadaal ibkii iyo bilaabitay wixii Soomaalida burburkeeda waxa xagga iga dhig laakiin nidaamka Soomaaliya oo maanta dhisan hooyay u tahay wax kale aan oran karaa ma jiro nabad baa taal alxamdulillah waxaan rajaynayaa galmudug haddii alla yiraahdo in iyadana u dhacdo mid taas iyo de kasii qurux badan hirshabeellena iyadana waxaan rajaynayaa taa iyo mid ka qurux badan Jubbaland taa iyo mid kasii qurux badan maxay ahayd koonfur galbeed iyadana waxaan rajaynayaa taas iyo mid kasii qurux badan
soomaali oo dhanna mid guud ahaan qurux badan ayaan u rajaynayaa. tii Somaliland ka dhacdayna waa ogeydeen waa biyo kama dhibcaan bay ahaydoo laguma wada hadli karayn. waxay ahayd high class, wax kale aan oran karaa ma jiro. maasha Allah tabaarakallah. tanna waad aragtaan waa macnaha waa xaflad si nabada ku dhacday, qurux badan, hanaan badan, dabaaldeg 23 sano kadib dabaaldegii ugu quruxda badnaa ayaan oran karaa. meeshaas waxaa ka dhacday xaflad qiimo badan oo qaayo badan. waxaan leeyahay ummadda reer Puntland dhammaanteed waan u hambalyeynayaa. hambalyo waxaan leeyahay qofku markii uu gurigiisa qurxisto wuu sharfoon yahay. sharaf inta yar oo inaga qaldanna waxaan rajaynayaa in ay toosi doonaan. ciyaarihii iyaguna waxa weeye ayaa iyaguna si sharaf leh u socda insha Allah taala. Sool iyo galabta ciyaari doona haddii Ilaahay idmo. saan u malaynay groupkii kala ciyaaraya. mudug baan aniga mudug koobka meelahaas haddii la geeyo kolba bari awood bay la soo baxday. xaaladeedu caadi maaha. dhinacaasna waxaan leeyahay kubadda ha socoto, qurux iyo sharaf iyo hanaan. ilaahay nabadaas iyo nimcada taal iyo barwaaqada taal ilaahay hanoo bulaaliyo. macnaha ilaahay kor haynoogu qaado ummadda Soomaaliyeed meel kastay degan tahayna. ilaahay waxaan ka baryayaa in nimco iyo nabdoonaan ilaahay ina siiyo oo iyadana inoo bulaaliyo oo kor inoogu qaado. intaasaan kusoo gabagabaynaya. waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.